kow iyo tobanka bisha saddexaad 2018 shirkadda Samsung ayaa soo saartay taleefanada kala ah Samsung Galaxy S9 iyo waliba Samsung Galaxy S9 Plus. Sidaa darteed maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago bal waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyay labadan taleefan oo ay dhawaan soo saartay shirkadda Samsung. Shirkadda Samsung ayaa ku sheegtay kaamirada Samsung S9 iyo waliba S9 Plus inay la mid tahay sida isha bini'aadamka, taas oo aan suurtagal ahayn maadaama abuurista Alle ee shay bini'aadam uu gacanta ku sameeyay aan isla mid noqon karin. Taas oo jirta kaamirada Samsung S9 iyo waliba S9 Plus ma ahan midda ugu tayada wanaagsan ee taleefanada gacanta lagu isticmaalo. Waxaa kaga horreeya dhanka kaamirada taleefanka Pixel 2 kaas oo ay soo saartay shirkadda Google. Sidoo kale waxaa kaalinta labaad ku jira S9 iyo waliba S9 Plus. Waxaa kaalinta saddexaad ku jira iPhone X kaas oo loo aqoonsaday taleefanka saddexaad ee ugu kaamirada wanaagsan. Miyaa tahay qof jecel duubista muuqaalada? Miyaase tahay qof daawada inta badan filimaanta iyo musalsalada jecelna inuu soo saaro muuqaallo la mid ah kuwa? Intaasoo dhan waxaa xal u keentay shirkadda Samsung oo soo saartay barnaamijkan slow motion kaas oo kuu suurtagelinaya inaad wax ka beddesho xawaaraha ama isbiidka muuqaalka, inaad kordhiso iyo inaad yareyso si aad ku aragteen muuqaalada ama aflaanta. Sidoo kale shirkaddu waxay soo kordhisay inaad duubi karto muuqaal cod la'aan ah maadaama inta badan dadku ay jecel yihiin markay ka duubayaan meelaha buuqa ama qaylada ama ay ka jiraan waxyaabaha saxmadaha muuqaalada inaad duubaan muuqaallo aan cod lahayn si ay hadhow u edit gareeyaan ama u farsameeyaan.